inti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba oo aad alaaba ka daawan jirteen warbaahinta wararka caalamka TV. waa 10 Oktoobar subaxnimo Sabti ah sanadka 2020 qodobada ugu doorka roon ee wararkeena maantayna waxaa kamid ah maamul goboleedka Puntland oo 6 bilood kadib soo gabagabeeyay kiiska dilka gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal Gujir xasan cali khayro oo tagay Nairobi iyo wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka socda kulamo xasaasi ah oo la yeelanayo madaxda Kenya iyo madaxda siyaasiyiinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan war cusub oo ka soo baxaya sababta keentay geerida Cali Khaliif Galleer iyo xogo dheeri ah oo ka soo baxay Kenya oo warqad digniin iyo hanjabaad ah u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya nabadoon xaad oo shaaciyay in shirqool loo maleegayo taliyaha NISA ee dowladda federaalka u xiran sirdoonka Kenya oo afduubtay ruux Soomaali ah kadib markii lagu waayay wax dambi ah oo la xiriira weeraradii Westgate Mall ee sanadkii 2013 daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena wararka caalamka TV fadlan daawadi haddii aad ku cusub tahay boggeena fadlan subscribe noo sar gambaleelkana furo si ay noogu noqoto dhiirigelin haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan maamulka Puntland ayaa 6 bilood kadib maanta shaaciyay in la soo gabagabeeyay baaritaanka qaraxii ismiidaaminta ahaa ee 29 bisha Maarso ee sanadkan ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal qaraxaasi ayaa waxaa lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir oo xilligaasi ku sugnaa bartamaha magaalada Garowe gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland oo ka hadlayay baaritaankaasi ayaa sheegay in kiiskaasi uu soo gabagaboobay isla markaana ay gacanta ku hayaan dad ku lug leh qaraxaasi waxa uu ka dhawaajiyay in dadkaasi loo hayo loona gudbin doono hay'adaha garsoorka si ay u maxkamadeeyaan inkastoo uusan carabaabin tirada dadka loo hayo qaraxaasi sidoo kalena waxa uu sheegay in dhawaan ay bulshada iyo warbaahinta la wadaagi doonaan qaabkii uu dhacay qaraxii lagu dilay Cabdisalaan Gujir oo ahaa gudoomiyihii gobolka Nugaal hadalkan ayaa imaanaya xilli ku dhawaan 6 bilood ay ka soo wareegtay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Gujir lagula egtay agagaarka saldhigga bartamaha ee magaalada Garowe waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi horay u sheegatay kooxda Al-Shabaab oo iyadu badanaa fulisay qaraxyada ismiidaaminta ah ee ka dhacay gudaha Soomaaliya daawadayaal xogo xasaasi ah ayaa ku soo baxaya safarka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku jooga magaalada Nairobi wararku waxa ay sheegayaan in Xasan Cali Khayre uu la kulmay madaxda dalka Kenya iyo madaxda Soomaalida siyaasiyiinta ee halkaasi ku sugan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxayna ujeedadiisu tahay inuu halkaasi ka xoojiyo ololahiisa doorashada xasan cali khayre oo goor hore ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa xukuumaddiisa la suuray dhamaadkii July ee sanadkani waxaana uu soo dhameeyay safarkiisii uu ku joogay wadanka Djibouti wararka laga helayo dalkaasi Kenya waxay sheegayaan in Khayre uu ololahaasi halkaasi ku xoojin doono wuxuuna la kulmay xubno ka tirsan dowladda hadda ku jirta iyo sidoo kale siyaasiyiin qudhooda u hanqaltaagaya doorashada magaalada Nairobi waxaa ku sugan xubnaha ugu badan ee doonaya inay isa soo sharaxaan xilka madaxtinimo waxaana meel sanadihii ugu dambeeyay ay ahayd Nairobi halka laga jaangooyo siyaasadda dalka Soomaaliya waxaa la xasuustaa in madaxweyne Farmaajo oo liisii madaxtinimada ka soo bilaabay Nairobi dhamaadkii 2016 waxaase la sugi doonaa haddii Nairobi ay mar kale soo saarto madaxweynaha xiga daawadayaal sidoo kalena wararka aan ka helayno magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in sirdoonka dalkaasi ay afduubteen ruux Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Liibaan Cumar sirdoonka dalka Kenya ayaa afduubtay Liibaan Cumar 5 daqiiqo kadib markii la fasaxay qareen Kenyan ah ayaa sheegay in dablay uu u maleynayo inay ka tirsan yihiin sirdoonka Kenya ay afduubteen kalyantigiisii kadib markii ay maxkamad ku weysay inuu ku lug lahaa weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Westgate Mall sanadkii 2013 halkaasi oo lagu dilay 67 qof Mamogay Muraiti ayaa sheegay in dablaydu ay afduubteen Liibaan Cumar 5 daqiiqo kadib markii la sii daayay Liibaan ayaa Arbacadii lagu waayay wax dambi ah kadib 7 sano oo xabsi lagu hayay laba qof oo kale oo la maxkamadeeyay Maxamed Cabdi Axmed iyo Xuseen Xasan ayaa lagu helay dambiga ah inay shirqooleen ficil argagixiso iyagoo taageeraya kooxda Al-Shabaab
Morrissey ayaa sheegay in Liibaan ay sii daayeen mas'uuliyiinta xabsigu kadibna lagu wareejiyay qaybta ka hortagga argagixisada ee booliiska ee TPU si ay u fasaxaan. Morrissey ayaa intaasi ku daray in durbadiiba uu Liibaan ka tagay xarunta TPU isagoo ay la socdaan 4 qof oo qaraabo la ah oo uu iska hor istaagay gaari madow oo xanibay taksi waday kadibna ay isku hareereeyeen rag hubeysan. Haween la socday ayaa sheegay inay qeyliyeen kadibna rag hubeysan oo sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adaha ammaanka ayaa ku amray inay aamusaan. Waxay u muuqataa in hay'adaha ammaanku aysan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda, ayuu yiri. Madaxa booliiska Nairobi Rashid Yacquub ayaa sheegay inay baarayaan afduubka Liibaan, hase yeeshee wuxuu yiri eedeynta la xiriirta in boolisku ay ku lug lahaayeen ay tahay mala awaal. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay in Xasan Abuukar oo ay walaalo yihiin Liibaan uu ka mid ahaa 4 qof oo fuliyay weerarkii Westgate, hase yeeshee qoyska Liibaan ayaa sheegay in Xasan uu aaday dalka Liibiya maalmo ka hor weerarka. Daawadayaal, xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Xasan Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegaya in bartamihii Sebtembar sanadkan 2020 deegaanka Togwo Jaale ay salaadiin reer Jigjiga ah Dr. Cali Khaliif Galeyr ka soo qaadeen waxaana la dejiyay Jigjiga International Hospital. 2 Sebtembar 24 bishan 2020 qada sharaf Onolef u samaysay iyo sarwirro uu la galay gudoomiyaha iyo wasiirada Itoobiya Filsan. 29 Sebtembar ilaa 2 Oktoobar Faysal Cabdi Rooble ayaa teleefon kula hadlay waxaana isku xiray Cadri oo ka mid ah Onolef wuxuu ka dayrinayay madaxda Somaliland. Isla maalin ka horna waxaa Hargeysa gaaray wafdi uu hogaaminayo Dr. Xuseen Xaashi. 4 Oktoobar ilaa 2 bishan Oktoobarna wareysi adag ayuu siiyay Nabad TV. Waa TV madax bannaan oo laga leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Daawadayaal, wararku waxa ay shaacinayaan in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda deegaanka Cali Khaliif Galeyr waxa uu u dhintay COVID-19 ay sheegeen. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Mukhtaar Yuusuf ayaa shaaciyay in arrintaasi ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen, hase yeeshee waxaa hadda soo baxay warar taas ka duwan. Cadaani Hirmoogo oo ah hogaamiyaha ururka Onolef ayaa sheegay in Cali Khaliif Galeyr la sameeyay isla markaana jirkiisu uu isbedelay. Odayga cunto ayaa lagu sameeyay baa la yiri, wuu shumay, wuu matagay, qandho ayaa qabatay, jirkiisuna wuu isbedelay. Jimcadii bayna bilaabatay hawshan, ayuu yiri hogaamiyuhu. Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sababta rasmiga ah ee ka dambaysa geerida Cali Khaliif Galeyr, mana jiraan baaritaan la dalbaday oo la sameynayo. Dowladda Soomaaliya waxay magacowday guddi qabanqaabinaya aaska qaran ee Cali Khaliif, balse ma jirto wax baaritaan oo ay ku dhawaaqeen si loo ogaado sababta uu geeriyooday. Dadka siyaasadda falanqeeya waxay maleynayaan inay jirtay cadaawad hore oo kala dhaxaysa Itoobiya maadaama uu sanadkii 2000 ciidamada Itoobiya ka saaray Gedo oo ay ku sugnaayeen muddo 4 sano ah. Nabadoon Maxamed Xaad ayaa ka deeriyay xaaladda taliyihii ciidamada Danab Ismaaciil Cabdimaalig Maalin oo muddo ku dhow 2 bil u xiran dowladda federaalka Soomaaliya sida uu sheegay. Nabadoon Xaad ayaa si adag uga digay madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya isagoo shaaciyay inay jiraan xubno ka tirsan dowladda oo shirqool u maleegaya Ismaaciil. Nabadoonka ayaa sheegay inay soo gaartay in la rabo in Ismaaciil loo wareejiyo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, kaas ay ku xiran yihiin dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana la rabo inay ku dhex dilaan xabsiga siduu hadalka u dhigay. Wuxuu ku dhaartay inay tallaabo ay ka shalaayi doonaan ay ka qaadayaan xubnaha abaabulaya shirqoolka lagu khaarajinayo Ismaaciil Maalin. Sidoo kalena wuxuu xusay in Ismaaciil loo bartilmaameedsanayo qabiil ahaan maadaama ay isku beeyihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wuxuuna ku eedeeyay filla Soomaaliya inaysan rabin dowladnimo, isla markaana ay ku hawlan yihiin dambi qoorta ay u galiyaan taliyaha xiran. Waxaan cod dheer ku sheegayaa, ayuu yiri, inaan laga gambanayn haddii ninkaasi wax gaaraan, saameynna ay ka shalayn doonaan, ayuu yiri. Wuxuuna ku sii daray, waa xishoonaynaa wallaahi haddii ay arrintu sidaas ku fusho, saameyn ay ka shalayaan ayay ku yeelan doontaa. Waxaan ballan qaadaynaa xamar in laga sameeyo mudaharaadyo ay ka naxaan. Taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa muddo ku siman 2 bilood ka hor shaqo joojin ku sameeyay taliyihii ciidamada Danab ee Soomaaliya Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig, arrintaasi oo si weyn uga xumaaday Mareykanku. Ma cadda sababta dhabta ah ee shaqada looga joojiyay taliya Ismaaciil, hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe socday isbeddello u muuqda in meesha looga saarayay dhalinyarada jooga hoggaanada ciidamada xoogga dalka ee aan la isku hubin xilli lagu jiro marxaladda kala guurka ah taas oo waday taliska xoogga dalku. Gaashaanle Ismaaciil ayaa sidoo kale lagu tirinayaa inuu si aad ugu dhawaa ra'iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Khayre oo ay isku beel yihiin, inkasta oo la sheegay in taliyuhu uusan wax qabyaalad iyo xulafaysi shaqo ah ku lahayn oo uu shaqadiisa uun ku egyahay. Daawadayaal, dowladda Kenya ayaa waraaq dagniin ah u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya.
dowladda Kenya ayaa qoraal digniin iyo hanjabaad u soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya sida uu shaaciyay wargeyska African Intelligence. Wargeyska ayaa sheegay in 2 Oktoobar ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Raila Omamo ay qoraalka u dirtay dhigeeda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ugana digtay in ciidamada Kenya ay rasaas la beegsan doonaan kuwa Soomaaliya haddii mar kale ay rabshado ka dhacdo xuduudda labada dal. Qoraalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xiisadda labada dhinac ay sare u kacday xuduudda dabayaaqadii Sebtembar, markaasi oo iska horimaad kooban uu xuduudda ku dhacay kaasoo ay ku lug lahaayeen ciidamada labada dal. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale shacab Soomaaliyeed ka afduubtay gobolka Gado, taasi oo dhalisay caro xooggan. Wargeyska African Intelligence ayaa sheegay in safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo uu arrintani mar hore kala hadlay xukuumadda Soomaaliya, hase yeeshee kadib ay wasiir Omamo ay si toos ah dhigeeda ugu sheegtay in ciidanka Kenya aysan mar dambe celin doonin rasaastooda. Warqadan ayaa sida wargeyska uu sheegay la diray kadib kulan ay yeesheen Golaha Amniga Qaranka oo uu gudoominayay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Kulankaasi ayaa sidoo kale taliyaha Uhuru wuxuu ku amray ciidamada Kenya Robert Kibachi inuu Soomaaliya u cadeeyo in Kenya ay ka go'an tahay inay tallaabo qaado haddii rabshado kale ay ka dhacaan xuduudda. Kibachi ayaa kadib qaaday tallaabooyinkii lagu xoojinayay ciidamada Kenya ee jooga xuduudda Soomaaliya sida warbixinta wargeysku ay tiri. Warbaahinta wararka caalamka TV oo xiriir la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya si ay wax uga weydiiso warqadani waa ay ka gaabsadeen inay wajahaan. Hanjabaadda Kenya ayaa imaanaysa iyadoo ay horey uga caraysnayd in dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadka ka iman jiray dalkaasi, taas oo ay sii dheertahay xiisad ka dhalatay sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya. Daawadayaal, intaasina waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba. Inta aan wararkan kuwa ka xiiso badan ku kulmi doono, waxaynu idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo.